magacaygu waa Jaamac Ali Cismaan ku dhashay gobolka Sool ku barbaaray gobolka Sool kamid ahaan jiray ciidamada Puntland waxaan tababar ku galay Abqaale ka bacdi waxaan aaday Jubbooyinka taariikhdu xilliga waxay ahayd baan maleynaya 2017 waxaan aaday marka Jubbooyinka gaar ahaan gobolka Kismaayo waxaan ka shaqaysan jiray muddo oo shaqadeedu ay u badan tahay dhuxul oo dadku dhuxul ay ka ganacsadaan dad jara iyo dad soo gataba anigu marka waxaan ahaa dadka soo gata ka bacdi gaari waan ka haystay gaarigii waan meel dhigay gaarigii markii aan meel dhigay oo aan muddo ka shaqaynayay bay halkaas nimanka la yiraahdo ururka al-shabaab oo argagixisaday bay halkaas igu qabteen waxay igeeyeen degmada Badhaadhe waxaan u xidhnaa muddo adigu 3 bilood waxay igu yiraahdeen maalinta dambe ay yimaadeen waxa laga rabaa lacag madax furasho oo $3,000 gaaraysa waxaan ku rimahay lacagtaas waa iga tageen muddo markay iga maqnaayeen haddana waa igu soo noqdeen waxay yiraahdeen haddaan nala shaqayso ka waran go'aan baan markaa waxaan ku qaatay nimankii inaad ay waxa weeye godka kugu hayaan iyo inaad adigu tala gaadho go'aan gaadho waa labada mid marka waxaan go'aan ku qaatay inaan yeelo taydana aan ka wato markaan chance helo waxa weeye chance-kiga fushado nimankii waa yeelay way soo kaxeeyeen waxay keeneen jilib baan waxaan joogay 2 bilood jilib haddaan 2 bilood joogay maalinta dambe adigu rag badan bay meesha ku ururiyeen waxaan noqonay adigu 60 nin maalinta dambe noo yimaadeen waxay nagu yahay tababar baad galaysaan tababarkii baan aadnay tababarka waxaan ku galay gobolka Bu'aali meel webiga hoostiisa webiga ku dhow jiinka webiga waan ku galay tababarkaas wuxuu socday muddo 4 bilood macallimiinta waxa weeye waxa la dhihi jiray macallinka tababarka haystay waxa la dhihi jiray Bishaar kalabaadna waxa la dhihi jiray Diris waxa ku jiray mid leeyahay Xuseen kulli saddexda waa garanay waa saddex nin ugu sarreeyay macallimiinta ugu sarreeyay way tababarka waxa la igu baray qoryaha uu weeyahay 7 BKM-ka iyo AK47 iyo adigu xoogaa qaraxyo yar oo maaragtay laga sameeyo bahashan la yiraahdo fiintooga ayaa qaraxyo laga sameeyaa oo muddo fika baasiin iyo waa lagu darayaa bur baa lagu darayaa rashka yar ciyaalka maaragtay ay iidaha iyo ay ku ciyaaraan rashka lagu rido kaasa lagu duubayaa marka adigu waa wax fudud oo hadii gaari fudud ku dhow yahay ba loo isticmaalo laakiin qoriga BKM-ka iyo 7-ka iyo AK47 ba waa saddexda qori ay meesha nagu bareen ka bacdi waxa la geeyay jilib haddaan joognay muddo oo adigu bil ah waana laga soo qaaday waxaana la keenay meel leeyahay Mukayle oo ka tirsan gobolka Hiiraan halka marka waxaan ugu nimid nin kale oo u fadhiya gobolka Mukayle oo gudbiye ah oo dadka aadaya Puntland buuraha golis dadka loo dirayo u qaabilsan ayaan halka ugu nimid ninkaas marka wuxuu ii sheegay inaan ku qorahay buuraha golis lagu soo qoray ka bacdi gaari candamidna baabuurta qaada jannaale ka timaada oo mooska ka soo qaado ama Hargeysa ha u qaado ama Burco ha u qaado baabuurtaasay waxa weeye nimanka sidoodaba waxay isticmaalaan hadda wixii marka safarkii dhulka maraya bay la shuraakeeyaan marba safarkii dhulka maraya marka baabuurta candamidlaha baan laba u soo raacnay qofka waxa la soo siinayaa maalintii adigu $5 waxaan baa la leeyahay adigu afar habeen iyo maalin $5 baa leedahay bay dhahayaan marka saasaan baabuurta soo raacnay aniga ninka la socday oo leeyahay Ismaaciil waxaan gobolka waxaan soo maray Gurceel baan ka dignay waxa la soo marayaa Cabudwa waxa la marayaa meesha la yiraahdo Qaloocan Laandheer Qarafo halkaas laamiga laga fuulaya in afmadow meelahaas laamiga laga fuulaya burcu gaarigaas tagaya burco markaad tagto hotel baa ku digaysaa hotelka laba habeen baa joogaysaa oo kula soo hadlayaan wada hadal baa jira muutankii kuwii buuraha joogay iyo kaad ka timi labadaba waa la hadlaysaa oo marka wuxuu ku dhahayaa istaanka Ceerigaabo tag baabuurta ka soo warqad ka goos istaanka tii warqadan ku goosnaa soo tagna Ceerigaabo marka habeen baan joognay hotelka aad degay hotelka deg bay ku leeyahay
marka ergaaba haddaanu nimi waxaa habeenkii hoteelka markaan ku degnay ninkii hoteelka iska lahaa ayaa habeenkii markaan seexnay subaxdii noo yimid oo maamulihii hoteelka ahaa kolley isagoon bay la furaakeynayay wuxuu yidhi marka caawa baxaysan maanta la iska seex maalintii waa iska seexanay maqribkii adigu 2 saac markay ahayd oo habeennimo buu ninkii yidhi soo baxa waa soo baxnay 2 qof baanu iyo nin aan kaloo aan meesha ugu nimi oo isna xagga ka yimi oo nin oday ahaa isaga meel kale la soo marsiiyey kolley annaga isku gaari maana soo raacin laakiin ninkaasi wuxuu joogay Mukayle markaan anigu imi wuu joogay Mukayle waa nin isaaqo Cabdiqani baa leeyahay marka isagu safarkaygina lama socon laakiin waxaan ugu nimi ergaabana hoteelkaan ugu nimi marka 3 baanu 3 dayadii buu soo saaray magaalada meel ka sokayso xagga ka xigta Jiidali baan ka soo baxnay dhinaca Jiidali aan soo baxnay meel qabuuraha magaalada agteeda kulli ninkii yaqaan baa yaqaanay halka markaanu maraynay wuxuu noo tilmaamay yiri gaariga halkaas ka leedanaya gaarigaas u taga gaarigii baan u tagnay gaarigu waa gaari seer foocad 2 nin baa wadata 2 nin waa 2 nin hor jeclaa waa niman shacab bay haayeen marka kulli iyagu soo nagu yiraahdeen oo wax diraysa iyo nagama muuqanayn laakiin waa niman la shaqeeyaan waxa marka dambe ka dhaxlay markaan sii sheekaysanay in gaariga iyagu ay u gadeen gaariga seerafta iyaga gaday waa gaari iyagu lagu shaqeeyo nimankaas waana soo qaadeen habeenkii meel reeruhu degan yihiin oo baadiyaha ah bayna keeno oo yuubi xagga ceergaaba ka xigta habeenkii halkaas joognay subaxii bay nagu soo qaadeen meel wadadan weyn ee yuubi soo aad la maray wada raf aad oo yar oo iyagu ay samaysteen oo gaariga uu ku sameeyay baanu qaadnay buuraha markaa meeshay soo fuusho ay ku dhamaato halkaas markuu way wadadii soo dhamaatay gaariga joojiyay meeshan aad joogtiin meeshan la idinku imaanaya haddaan waxay joognay 3 4 nin baa noo soo muuqday 4 nin baa soo muuqday afartii markay soo muuqdeen waa israacnay waxaan tagnay meel la yiraahdo gacan maroodi oo waa taliska ugu shisheeyay weeyo ergaaba xiga marka waxaa degan halka niman la yiraahdo duuliyayaal waa nimanka wax soo kala gudbiya xagga ka yimaada ay ka soo gudbiyaan taliska mirid loo soo raraa halka gacan maroodi markaan nimo aan 2 habeen joognay subaxii dabbaana laga soo waday adigu dhow habeen baan soo soconay waxaan nimi aakhirkii taliskii weynaa oo mirid oo buulaha golis laga xukumayay shugu weynaa baan buuraha waxa jooga niman siyaabo kala gedisan lagu soo galiyay oo raxan weyn u badan nimankaas barnaamijyo been ah lagu soo hogageliyay maxaa yeelay dee wiil yar oo awalba iska dayacnaa ama waxa weeye noloshooda awalba iska qawaday dadkaasay nimankan waxa weeye imaaji gareeyaan dadkaasay ka daba wareegaan wiil yar oo noloshooda iska qawaday hadii la yiraahdo khayr iyo barwaaqan ku haynaayo naagaan ku guurinaynaado lacag baan ku siinaynaado waxbaanu suuqa dibaridaynaa waxa weeye dee way iska sahlan tahay nimankaas sida lagu soo galiyay buuraha waqti ugu badan waxa kale oo jooga oo ku xiga niman Soomaaliland u dhashay oo hubka iyo rasaasta iyo dharka iyo wuxuba ay uga yimaadaan Soomaaliland kuna difaacanaya maamulkooda meesha waa lambarka labaad la jooga inaan hadda maalin sheekaysanay oo raxan weyna baa wuxuu igu yiri dharka hadda aan xirnahay macaws iyo kabo iyo waxa ay keenay nin la yahay cali macaaniye oo isaaqa baa dharka ay keenay buu yiri waxa weeye toban jawaan oo dhar ah baa waqooyi looga oo laga soo dhigay marka nimankaasna waa lambarka labaad وقوة لبض عيدان ماشي ugu waaweyn ee degan waa labadaas waxaan inta ku darayaa nimankan anigoo og nimankan hadda beesha warsan galiyahay waxa weeye oo deegaanka ah waxay ku hayaan dhagaxto waxay ku hayaan handadaad waxay ku hayaan ciriiri waxay ku hayaan in dadkii ay socodkoodii xadadeen oo dadkuba uu yahay jaam jiro beerahoodii ma falan karaan oo way u diideen beeyadoodii iyo wixii ay ka ganacsan jireen oo dhan waa u diideen ninka anigoo og marka ninkan la yiraahdo buuraha
ugu sareeya oo la yiraahdo yaasiin la yiraahdo magaciisa xarakigaana la yiraahdo yama waa nin warsangeliya waa nin salma doorsha waa rumuud loo maro beesha warsangeli wax kale oo uu taro bataata ma jirto wax kale oo uu tara bataata ma jirto waa nin inta u fadhiya waa rumuud bas loo maro beesha warsangeli oo lagu qaraabto oo la maanta inta beesha adiga keen hebel dil rag badan bay ku laayeen buurta oo 10 gaaray oo dadka deegaanka waa la ogyahay Puntland oo dhan iyo ummadda dhan buu ogtahay warsangeli xitaa beesha warsangeli waa ogtahay oo ay ku laayeen meesha raggaas waxa la yahay isaga loo maraa anu markaan midii soo galay markaan taliska joogay Shanbari bay waxay ugu qoreen meel la yiraahdo dhulcudul oo taliska ku dhow bay ugu qoreen ciidan yaro 20 oo degan oo Suudaaniya oo degan baa leegeeyay ciidankaas oday oo ahaanaysa halkaas joogaysa shaqooyinkana bartaas ka sii wadaysa adigu waxaan 25 meelahaas 25 bay u degan yihiin uma degana ciidan badan oo urur awoodda ma laha manku waxaan sidoo kale dadka khalkhal bay geliyaan wax beena oo riwaayada bay dadka tusaan meel kasta waxay taagayaan 5 6 nin oo laga arko oo leeyahay halka wala shabaab baa joogta halka shabaab baa joogta wax awood oo ilayhi manku ma jirto haway gacan marodi waxa jooga waa wax dhowr iyo 10 meel kale darax leeyahay dhexda waxa jooga dhowr iyo 10 oo aan taliska ahayn taliska waxa jooga waa wax yar laakiin wixii bay kala qaybqaybeen meel ba afrax dow taagan wuxuu waa wax saas taliskaas baa marka anu joogay taliska intii aan joogay waxa uu gal ah oo weyn oo dhacay ma jirin hal maalin baan soo tagnay oo la yiri waxa la aadayaa galgala maalintaasna waxay ahayd ku dhufo ka dhaqaaq ma ahayn hujum hujum jidgooyana ma ahayn marka waa soo tagnay rag 40 baa meelaha laga soo ururiyay oo anigu aan kamid ahay waa soo raacnay habeenkii waxaan soo dhexdaan soo seexanay maalintiina waa iska soo meelahaas iska soo harwaraableynay casarkii qorraxdu markay dhacday baan buurta galgala afkeeda meel ku dhow dabeedna afar xabbo hoobiya un baa la riday afartii xabbo hoobiyaha marka la ridayna cidiyaha baxay waa bara yaacnay intii la ciidanka waa soo chief baalkeeda tan raadiyaha ka bal ciidankii waa soo yaacay baan mar qaba wixii waa carab xitaa qaadba alaabta caagado iyo qasnado iyo meeshii kaga tagay waa carabay marka sidaas aan ugu laabanay taliskii marka anigu intaan joogay wax dagaal oo weyn oo dhacay ma jirin dagaalkoodu wuxuu qaybsamaa nimankan saddex buu dagaalkooda u qaybsamaa dagaalka koowaad waxa la yahay hujum dagaalka aan soo noqoshada lahayn hujum baa la yahay dagaalka labaad waxa weeye waa kamin inay jidgooyo dhigtaan oo waxay jidgooyada intay waxay adigu ka heli karayaan ka helaan ay laabtaan ka labaadna waa ka ku dhufo ka dhaqaaqo intii lagu soo dhawaado lagu soo tuurayo wixii ay hayaan waa hoobiyo xabad kale rimay hoobiyo bay soo shireen marka saddexdaas waxay ka turjumaysaa inay wali joogaan oo isdareensiin weeyii inay ciidanka wargeliyaan inay wali joogaan bay uga dalneeyeen wax macna oo weyn kuma sii jiraan taas markii aan ka laabanay hawlgalka aan galgala ku soo qaadnay oo arbushka markii aan ka laabanay oo aan ku noqonnay taliskii oo anigu aan tagay taliskayga dhulcudul baa maalin maalmaha ka mid ah adigu 3 casho miyay ka dambeysay meelaha baa wiilka yarka oo reeraha meesha degan meesha waxa degan dhowr qaba warsangeligaas oo badan iyo tiinle iyo qolyo kale iyo diga marka wiilka yar wuxuu ahaa qabiilka leeyahay tiinle wiilka yarka marka wadadiiba ku soo lumay wadadu waa waxa weeye roob markuu doo bay ku lugeeyaan marka wadan lugeed roob ah oo dhulka tubaal dareemaysid baa dhulku wada leeyahay marka wiilka yar reer marka ku soo guuray hay meesha oo reeraha ku cusub hore u digi jiray ma ahayn marka wiilkii raba noo soo galay wiilkii raba meesha ku qabanay isagoo xeradii dhex taagan baan baragnay oo wiilkii raba qabanay wiilkii raba anagu wareysanayna baa waxa noo yimi ninka la yiraahdo Ilyas oo ah madaxa qarxiyada Ilyas baa leeyahay waa madaxa qarxiyada waa nin aad iyo aad waxa weeye dibiyada waaweyn aad uga shaqeeya ninkaas marka wiilkii anagu haraysanay wuxuu yiri war wiilkan yar muxuu ahaa markaas waxaan ku waa wiil yar soo lumay wiilkii reeraha ka soo lumay markaas maxaa u dili weydeen arrinta igu yaabka badnay maxaa u dili weydeen markaas waxaan ku yiri maxaa lagu dilay wiilkan yar reeraha ka soo lumay oo hubna aan wadan askarina aan hayn maxaa lagu dilayaa
markaasuu yidhi waa jaajuus markaasaan ku maxaad ku ogaatay jaajuus ma lagu waxyooda adiga waxyi miyaa kugu soo degay markaasuu wuxuu igu yidhi waxay igula soo deganaya dhiig baa kaa hadlinaya walluusan wax kale dhihinay bilahi tal dhiig baa kaa hadlinaya marka dee inaad qabato way moogta waxaan haddii waxa weeye anu markaas aan dareemay moogta inaan dee waa inaad dee dareenkaaguna waa inuu joogaa waxaan waa cadow anu markaas aan isqabto sheekadii intaan beddelay waxaan ku yidhi dhiig iga hadlin maaye dad islaama waynu nahay wiilka yarna waa dadka muslimka ah hadduu dee wiilka yar dambiile yahayna dee dembigiisa lagu qaadaya hadduusan dambiilo reeraha yahayna dee cidina waxa weeye cidina wax yeeli mayso keligaana shabaab ma tihid baan ku yidhi keligaana shabaab ma tihid dadku innagoo dhan shabaab waana waxaadan adigu go'aan aad adigu iska leedahay ma qaadan kartid go'aankan wax ku fulin karnaa waa go'aan aan wada dhannahay baan ku yidhi dabeedna waa naga laabtay adigu wiilkii yaraa waa sii diiday wiilkii yaraa sidaasuu uu ku helay xorriyaddiisii sidaasuu ku tegey sidaa hadduu ku tegey annagu ninka marka halkaas maalintii labaad buu habeenkii labaad oo xilli annagoo salaadii subax buu haddana soo laabtay maxaadiru isu taagay maxaadiradaas marka aad dareentay anay igu socotay maxaadirada isu taagay mid aniga wiiladan lahaa wey macnaha wuxuu dareensiinayey qalbigayga inuu u fahansiiyo shabaab waxa weeye muxushiniinkan meel fog buu weli joogaa markaasuu intuu hadlay isagoo dee ii dul maraya maxaadirada wax ka soo sheekeeyey buu wuxuu yidhi gobolka laascaanood garoowe qardho boosaaso dhammaan waxaa jooga waa gal waana la dilaya markaas waxaan ku war dadku gaal ma wada hadlay intaan islaaway haddana war dadku gaal ma wada aha maxaa dadka gaal ka wada dhigay markaasuu yidhi maadaa og markaasaan ku yahaa anaa og baa ku yidhi wallahi inaan wax kala dhigin anaa og baa ku yidhi dadku waa islaam markaasuu ma aayad baad u haysaa markaasaan ku yahaa aayad baan u hayaa halkaa markii maraysay baa oday isaaq oo odaygaan kuu sheegay marka hore cergamaan isku soo raacno isaaq cabdiqin la yidhaha baa war sheekadu waa xidhantay lama mujaahid baa tiinay dadkuna odaygaasa marka waa la filin laakiin xoogaa nin ka reer magaalsan buu ahaa odaygaas laakiin waa la filin odaygaasa marka wuxuu yidhi sheekadiibu wuxuu u dhigay si kale oo dadban wuxuu yidhi dadku gaal ma wada aha laakiin shareecadu markay tagto boosaaso iyo qardho iyo garoowe iyo sool ayaa wixii gaalana waa gaal wixii muslimna waa muslim taas waa macquulay moogtay laakiin ummad dhan baa wada gaala oo islaama oo waxa weeye weligood islaam soo ahaa baa gaala baa iga degi weeyey marka arrinta ninka aan iska raax odaygaasaa markaan dhexdhexaadiyo lama mujaahid baa tihiin iska kala taga sidii baan ku kala tagnay arrinta aniyo Ilyas waxa weeye halkaasay ka bilaabantay markii dambena habeenkii dambena intuu ii yimi xilli adigu hal saac oo subaxnimo intuu noo yimi wuxuu yidhi siciidow qorigaaga soo qaado waxaynu aadaynaa meel baynu ka soo laamaynaa waxa weeye meeshaasaynu ka soo laamaynaa qorigaaga soo qaado caagadaada biyaha soo qaado halkaas caagadeedii baan soo qaado moobeelkan ka imo buu yidhi meeshu ateyna ma leh anu marka moobeelkii intaan dansaday baan jeefka ku ritay caagadeedaan soo dhaansaday tuutahaygaan soo xidhay qorigaygaan soo qaatay xabadaydaan soo gashaday waxa weeye diyaar garow baan galay sidaasaanu ninka la yahay Ilyas isku soo raacnay wadada af urur soo aada baan soo qaadnay dhexda markaan soo maraynay ii warramay oo ii wadadana waa wadada af urur oo hadda ka hor aan af urur ku weeraray oo aan af urur ku weeraray markaasuu ii warramay anu marka hore shaki baan ka qabay markuu ii warramay baan xoogaa waxaan dareemay inuu marka hore shaki weyn baan ka qabay oo ii warramay wadadana waa wadada af urur hadda ka hor baan ku weeraray wuxuu kala igu yidhi arrinta aan la yaabay siciidow af urur waagii aan tagnay aan gallay 8 nin oo hartay baan ku dilayay ana gacantayda ku dilayay markaasaan uurka waxaan ku yimid dishay markaasaan waxaan ku yimid dishay markaasuu haa markaasaan waxaan ku yimid wala dib ma dishay baa ku yimid wala wax kale u dhig uurka kay wala dib ma dishay baa ku yimid marka adigu waxaan marka meel la yiraahdo kaxbil cilay marka halkaas ugu warramay wuxuu yidhi halkan wadooyinka ku kala baxa oo waa meel barxad weyn oo qabuuro iyo waxbay leedahay wuxuu meeshan wadadaas halkaas aada inagu wadadii afur hadda waa ka baydhana wada kale aynu qaadayna saas igu war marka saasaan waxa weeye togi weynaa oo hadda magaciisu way togi waxa la yiraahdaa
toga waxaa la yidhaahdaa hadda magaciisa way khaldan yahay waxaa la yidhaahdaa toga dalqolxaan waa toga isugu kay dambaysay xilli 10 saac togi markaan nimi caagadihii buu yiri inoo dhiga oo meeshu waa dhowdahay buu yiri alaabta aan ka soo qaadi lahayn caagadihii baan dhignay marka dib ma dhihi kartaan caagadeedan qaadanaya waxa weeye filimka ka fashilmay ma dhihin caagad baan qaadanaya in ma waa sax ah alaabtu meeshii ay taalay markii aan nimi wuxuu igu yiri waxaan ku yiri alaabtu meeshii taalay waa joognaa buu markaas waxaan ku yiri ordino soo qaada alaabta anu wadada marka wadadii baad soo soo gashay moobtay xaggasan saas oo kale aan u soconay wadadii baad saas wadada bartilkeedii waan intaan fariistay geed qulac hoostiisa waxaan ordino soo qaada alaabtii bay doonaysaa daba galay saas oo soo raacay marka oo iga dhaqaaqaan waxay aadeen xaggii oo alaabtu ay taalay alaabtuna waa bahalkan biyaha lagu dhaamiyo oo qarbadka way ku caaga waxa weeye alaabta oo qarbadkaas wuxuu meesha u yaalaa waa fududeey markay ka soo baxaan waa meesha ay ka soo weeraraan afur uma iman karaan waa meesha ku soo nastaan biyo ku shubtaan habeenkii halka soo joogaan maalintii meelaha soo marmaraan maqribkii bay imaanayaan meesha la yiraahdo afur oo kale marka qarbadku wuxuu meesha u yaalaa waa nasiino ay ku soo nastaan ay wax kale meesha ma yaalo marka waxay rabeen inay qaadaan oo meel kale ay u qaataan marka halka noo soo qaadan alaabta markay dooneen oo adigu 5 talaabo iga dhaqaaqeen waxaan ku yiri dalabadu dhulka yaaleen magarad kii weynaba xoogaa qaar kala soo kacay waa u dhammaystiray labadii qori baan ka soo furay meesheedii baan cabaar iska fariisto waxaan siri anigu marka waxaan ku talagalay geeri iyo nolol inka raga geeri iyo nolol buu dhaxeeya mugta marka waxaan siri ha iska ordini ilaa hadduu wadankana ma kala aqoon waxaan siri ha iska ordini hadduu doono xabadda kuwa intay maqlaan bay meelahan ka soo yaaci karaan ilaa adigu ma ogid meesha wax degeri marka go'aan baan qaatay rasaasna waa haystay adigu 150 xabbo oo rasaas iyo 3 qorina waa haystay kaygii 3 baan haystay iyo adigu rasaas gaaraysa 300 xabbo waa taan maleynaya adigu khasnada marka loo 4 boosh igu jiray iyo 8 khasnado 8 khasnado 4 iyo la 3 7 khasnadood baan haystay waa buuxa marka laba dhagax oo waaweyn oo xagga dambana ka xidhan intaan dabada la galay waxaan siri wixii eeriyadaas haday ka soo yaacaan haysdiin nolol haysku dhiin meeshu waa meel aad cimiladeedu u fiican tahay hadii xagga dagaalka laga hado waa buuro iyo dhagax moogta ninkii aan baqay waxa weeye hore looma qaban karo kan baqdin ku jirin hore looma qaban karo laba dhagax baan galayo habbaar baan meeshii indheeyay wadanka oo dhan baa saafiriyay markaan arkay inaan wax dhaqaaqay jirin baan intaan waxaygi xidhay wadada ku soo taagay ودي كلسوني وحن كوها يستوى ضدي نوك أول وحن كبغي ودي اللوجات تلقى عبدون أنا ما كيس كده إحنا قلت نوك عقل بزين وشغال الرجل بغيت تحسن كده لكن هذا وحن هيستي ودي جاري ودي بان عكس صوصار ودي بان عكس صوصار ودي هذا عكس صوصار الحل المخربة بان سنقر مغرب إنت واحد جيستي هذا واحد جيستي وحقيقي بحي أري يوح وكسر دوادين مركمل حين المخرج الدبليس الصولر يوم أنا مركوي عن سري يوم موبايل وحسماني بان استقبل ورد أنا بضحك صار صعانكم لو حن سيدو مركي يدو واحد هذا أي أقعدان هذا دون قليل اسكبل عن كرت نيكي بان دور عدلا جيو نيكي بان ورستو نيكي بان سفي عن جوه رمضو وحن ويدي حجيب بالله أن يقولوا مركز يقول أفكر ربك يقولوا لاج بان ويدي إلا مركز يروح يقول وددني لاج بيكش مكت مركز صح حنقول لاج أنت جت مركز يقول لاج مرة لكن أفكر ربك كركو أبي markaasaan ku wada gaari isla markaas uu halka ka dhaco wada jid gaari baa ku soo dhacay jidkaas la gadi meeshii baan ka baxay adu ma ninkii baa waxaan ku yiri lambar magaalada ah isi hada wax ka taqaano ninkii wuxuu siiyay laba lambar mobilkiisina waa ka qaaday moogta mobilkiisa waa ka ururiyay hal mobil buu mobilka waa ka qaaday haduu doono wuu wici karaa adiga ma ogi waxaan reerbaadiyahaas u dhan bas kala shaqeeyo waxan oo dadkaas ka ilmadooda marka laba lambar buu siiyay wuxuu lambarkaasi waa nin odayo meesha jooga lambarka kalena wuxuu igu yiri waa nin kale meesha jooga ninkii marka xaqii waxaan ku yiri afar aadi maayay waxaan aadayaa laag buu tilmaamay markaan tii laag aaday xogaa socday waan jiiro soo galay meeshii wadadii bay ku soo dhacday wadadii baan qaaday leerkii magaalada ay baxay ciidankii ma intaanan wadadii markaan helay oo wadadii aan tagay waan telefoonkii la soo baxay labadii nin oo ii sheegay baan waxaan wacay nin ahaan
waxaan ku warnay waxaan rabaa niyo ninka joogo bal askarta meesha joogta inaad mobilka igu geyso markaasuu ma gobolka iga baxay dadku dawaadad iska baxayo waa ka tagay odaygii kale baan wacay marka oday kale oo nin oday igu tilmaamay odaygii haddaan wacay odaygii baan wacay odayga waa uu xamay noqday markaan de wax baqdin markii waa ka soo dhawaaday magaalada leeshkeeda waa ii muuqdaa odayga waxaan ku yiri warno nin harti aan hay shabaab baan ka imi hub baan wataa nin odayana waa la igu tilmaamay waxaan ka rabaa wax kale adiga kaama rabee askarta meesha joogta telefoonka uu inaad igu geyso iga warbixiso kaliya odaygii isu buuyaana kugu soo celinayay odaygii mar dambe soo wacay niyo wuxuu yiri shabaab waa iska dhibadan tahay dadku waa nimankaas waa niman hawl badan xilliguna waa xilli habeenimo niyo wuxuu yiri odaygaas anigu waxaan ku sheegay arrin xaqiiqa caawa isdabar bay yiri ima qarin hadalka caawa niyo isdabar waagu haduu bariyana waa kula joogaa saasuu yiri go'aankii ugu dambeeyay haduu siiyay marka haraad iyo waxba ay qabtay oo de ciidankina waa ku dhawahay waxaan isla marka arrinta haraad dhiman lahayd iskaga dhawow ninka odayga ku tashanay ciidankii waa ku dhawaado meel ku dhow baan iska fariisto cabaar baan waxa weeye iska qabowsanayo aqligaan ka shaqaysiyo waxaan si nimankan marka hadda xabad baaqa u rido waxa weeye de waa niman shabaab iyo balaayo aan geysa ka baqeen waa isla kaajiirayaan alla waxa samaysaa qayli qof qaylinaya de tababar ciidan ama iska dareemaya de wixii ciidan waxa loo tababaraa qof qaylinaya inaysan dilin qofkuusan wax ku soo ridayn waxay u tababareen ciidanku ilan waa ilaaliyihii wadanka qof qaylinaya iskama dili karaa waa mamnuuc waxaan si marka ciidankaas ku dili maayaan qayli qof qaylinaya waa naas ka aaminsan qof qaylinaya ciidan dili waa qayliyay marka qaylan bilaa waa qayladii baan ku soo galay wadadii baa kala baydhay toodii baan la galay difaaca afkiisii haddaan imi laba unagood baa hareeraha iga martay hub baan wataa baan ku yidhi hubka dhig baa la yidhi hubkii haddaan dhigay waa la kaxeeyey cashaa lay keenay biyaa lay keenay meel baa laygeeyey dharkii baa layga bedelay waa seexday waa qubaystay hadhow baa barankaasi xilleeyey nimankii baan u warramay bas habeenkii baan la joogay xilligaan u tagay 6 saac bay ahayd oo haway habeenka barkii intiisa badneed waaba tagtay markii dambena aroortina waa soo qaadeen sidaasay waxay ugu soo wareejiyeen madaxtooyadana waxay keentay saldhigana waxaa markii dambe ay timi ciidanka BSF baan imi xarunteeda wasaas way ciidanka BSF intii ay hayeen anu كل عيدان waxay weydiinayaan waxaan bal iga qaadanay anu ciidanba ma dhaxeem anu waxaan badhihi lahaa BSF hooyaan badhihi lahaa maxaa yeelay waa ciidan marka hadda shaqooyinkiisa aad aragto waa ciidan dhexdhexaad ah waa ciidan aan qabyaalad lahayn waa ciidan ummaddu ay isugu mid tahay xitaa kuwa shabaabka iyo kuwa shacabka iyo iyaga dhamaantood waa isku xuquuq aan wallahi hadda been sheegay waxaan hadda cadaynayaa askariga BSF ee shaqeeya iyo ka maxbuuska oo halkaa ku jira oo la soo qabtay waa isku xuquuq wuxuu cunaa wallahi billahi tallahi qadada wuxuu cunaa isku xuquuq baan isku gogol baan isku biyaan isku raashin baan ma garatay waxaan kaloo ka yaabay meesha hadda xabsiga ah oo xabsiga BSF aniga haddii wax laga weydiinayo anu waxaan badhihi lahaa masaajid ummaduna waa ogtahay waxa weeye Soomaali badan baa tagtay oo og Soomaalidu way ogtahay BSF waa dad wax badan ka fakaraya way taas waa taa waxaan kaloo ku darayaa waxa yaala meesha xabsiga sababta aan u dhigay masaajid oo kale aan dhigi lahaa gudaha markaad gasho hadda masaajid Soomaalidu waxa weeye laga yaabaa in suuqa marka la joogo wax badan la isku dhexmaro waliya BS wasaas iyo BS wasaas waxaan halkan ka cadaynayaa كتاب عن أول ماشى متشو هدو قرآن يهي يهدو فقه يهي يهدو أحكام يهي يهدو نحوي يهي يهدو دعاء يهي يهدو صفين سلاد يهي وحكم مقن حتى وحن كواركي كتب كشقي حولها بانكواركي لبعض أنا هذا وحرت ولا وحن باقية أن دوني هالك أنا كعدي ومكي أنا كمد هانتري والله يرد على سلمي وحن روا مر لبعض إنا حوي باقي شيء marka dhalinyarada aanu aan ka mid ahaan jiray
oo la lumiyey waxaan rabaa mar labaad inaan baaq u jeediyo waxaan leeyahay wixii laynagu dhihi jiray waa been wax allaale wax ka jiraa ma jiraan Puntland anaa la jooga Puntland haddii laydinku yidhi waa inagu dhihi jireen waxbay dilaan waa been wey haddii wixii ay nagu dhihi jireen laydin dhihi jiray Puntland waxbay xidhxidhaa waxbay meel xabis gelisaa wax allaale wax ka jiraa ma jiraan Puntland waxay diyaar u tahay qof kasta oo Soomaali ah oo nimanka sharwadayaasha ay ka lumiyeen waqtigiisii in ay dib ugu celiyaan noloshiisa ee Puntland diyaar u tahay Puntland taasay diyaar u tahay Puntland diyaar uma aha qof Soomaaliya inay dhibaatayso ma dhibaateyn doonto waxaan kaloo rabaa in halka uga baaqo dhalinyarada aan ka mid ahaan jiray marka ugu horeysa idinkoo aan biqin kalsooni idinka lumin ciidamada Puntland meel kasto ay joogaan meel kasta meeshii idin dhow isu soo dhiiba ciidamada markaad isu soo dhiibtaan ciidamada waxa ay u dhisan yihiin shaqadiina inay idinka dhibaatada laydin marsiiyay ay wax ka qabtaan ciidamadu waa idin kaxaynayaan wax allaale waxay idin yeelayaan ma jirto waxay idin geynayaan xarumo laydinku talagalay oo laydin qorsheeyey oo agab kasta oo qof bila'aadmi ku noolaado uu yaallo meeshaa markaad tagtaan oo ku nasataan waxay idin imaanaysaa madaxda idin waraysanaysaa madaxdu waxay idin siinaysaa cafis madaxdu waxay idinku wareejinaysaa xigtadiin xigaalkiin odayaashiin aabbayaashiin waalidkiin waxaa intaa raaca qof kasta xorriyadiis meeshuu rabo ma aha khasab iyo jujuub iyo halkan noqo iyo halkan gal iyo ma jiraan waxaas iyadoo waalidkaaga marka lagu wareejiyo gacanta lagu saaro haddana waxaa lagu sii weydiinayaa meel allaale meesha rabto intaa waxaa dheer madaxdu waxay diyaar u tahay inaysan cidlo ku dirin ay diyaar u tahay nimanka saraakiisha iyo ciidankaba oo ciidan saraakiil iyo iyagaba oo saraakiisha oo ku sugan buurahan golis oo jooga oo u dhashay Somaliland waa niman waagi hore waxa madax u ahaan jiray in la yiraahdo Cali Macaani haddana waxa madax u ah nin kale ninka magaciisa hadda waxa weeye ama dayr baan joogay oo waxaan magacyadooda hore uma heli kartay laakiin nin kale hadda waxa weeye madax u ah nimankaasi marka waa niman shaqadaas meesha u jooga waa niman ay Somaliland iyo gobolada hubka iyo rasaasta uga yimaadaan iyo alaabtoo dhan uga timaado waa niman meesha u jooga inay maamulkooda ka difaacdaan maamulka Somaliland wax kale oo ay meesha u joogaan bataatan ma jirto iyo inay Puntland dhibaateeyaan